بسم الله الرحمن الرحيم لمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحا خدك تليفونك كوتشرته شكري عبد الله الشيخ عبد الرحمن هو يضا إن أنت لجو حد قدبي لجونا حد قدبي ديجان كقول دوجب إن أنت مقعد وحا ليدا هذا رضوان سحرديد وحنا ينوجو الرميسة هو يديد وجو الرين وحنا ويديننا بل أنت أنا ويدين فلكن السيدو دعي ويديننا بل وحا أيمك يكون ضميسي حالة عافيمات شكري بل هو ورن حالة عافيمات رضوان ولا حالة عافيمات رضوان وحاوي هذه وقف دعوة كورية بدن كليالين حس كذا يمسك هذا قاعد كراسوين بدن يسوق قاعدين شركة المال خمسة أو سيو ملحن كورية هذا أو دران إلا يحد دعوة وعن سكونين جاري متعددة لكن يسدد إشاء أيام نختار كشرنا بكال دعا حدث عن كايو عاصمات كذا بنتاعي إلا يحد ولي ما مدري من عاصمات بنتاعي سراعي هوا مير ميرقة مروي مير قرشو ميسا مرضنا على كشوان تايمو كذا waxaad ka warantaa falkan sidoo ku dhacay markii ugu horeysay gabadha yarayada oo soo guriga ka soo baxday oo gabar kaleento dhaweynayso oo sii socoto markay wadi dhaweysi ka soo noqotay waa dhaxda laga wiil oo yar intuu istaagtay mariyaha kaga dhageen intay iska fujinaysay gaarigii baa gabadhii lagu ritay gaarigii musti baa laga daaray waa lala cararay laadiya la geeyay arrinka foosh xun baa lagu sameeyay gabadhii kooma iska gashay ilaahi xad muddadan baan raadinayna gurigayna raadinay meel ka baxlaynay kadibna waxaa loo sheegay iyadoo muxuu ahaayey sakaraad gaalkaayo ku ah ayada nala hadashay oo tiri aniga arrinkaas ay igu dhacay mana soo socdo mana idiin imanayo meeshaasaan sakaraad ku ahay hooyo dhibaatadaas ay gaadhay jirbiliyada sarfaadkaas hooyana ma sheeganayo aabana ma sheeganayo sixin baa la ii galay waqaasaas baa igu dhacday meeshii may muxuu ahaa iyadoo sakaraada nin ka qaaday nin baa qaaday annagoo way naga cararayn oo mana sheegin markii gaalka ayaa la keenay kabacdi bay iyadu nala soo hadashay telefoon reeradayii nagala soo hadashay falkani goormuu dhacay misaa ka soo wareegtay 12 bishii 12 oo sanadka hadda ku xirmay toddobadeedii buu dhacay toddobadeedii toddobadeedii waan gartay maantana waa bishii koobaad 16keedii waan gartay sidee buu warkan loo helay maxaa hore loogu sheegi waayey maxaad u gaarsiin weydeen muxuu ahaayey dadkii falkan samaystay cidda wax ka qabanaysa ee maamulka haysata maya gabadhu way caraday hadday naga caraday waxay qabtay warka maan nahay cidna nooma soo sheegin kaamarad baa laga duubay ayadana way iska caraday ilmo yaroo qalbafo ku dhacay bay ahayd inuu maskixiya ma jirogay oo qalbadii jabtay gaalkacyay soo gashay markaa kabacdi annagana soo wacdo waxay tiri hooyo dhibaatadaas ay gaadhay ilmana soo socdo way kaasaa gabdhahan u dirsooday markiiban gaari soo raacay dartaana ugu yimid markaasay dhakhtar la kulantay markiibaan raggii yani lagu dhaqaaqay kaamaradii ay soo saareen ayagaa weliba gacanta ufusaashelay kaamaradii bay soo faafiyeen kaamaradaasa lagu baraarugay kamarada fiidiyoyadan muuqaaladan laga soo geliyay baraha bulshada marka ma iyagaa soo geliyey nimanka falka sameeyey baa soo geliyey ayagaa soo geliyey ilaahay baa shilay oo markaa iyagu miya ku faan bay ka ahayd markay soo gelinayeen maya waxay ahayd gabadhan gabar yar bay ahayd oo ilaa iyo xad iska adag oo ilaa iyo xad lasoo weeraray 10 jeer horeento ay iyagu lafkooda soo weerareen oo ay ka soo caraday oo in badan ay daba joogeen haddana waxay rabeen inay kaamarada xugmiir ahaan u haystaan oo ayada ku bahdilaan oo aysan gabadha ay sheegin bay rabeen ma garan ha waxay doonayeen muuqaaladan inay ugu hanjabaan marba ay yidhaahdaan kaalay haddii kale waan faafinaynaa saasay ahayd marka ilaahay xaqaas kallidu ka cadeeyey arrinkee ilaahay baa fashilay iyagii baa soo saaray isla markiiba hal nin baa bixiyey qolaba qolo u dhiibtay isla markiiba maxaa tidhi يعني هو نبى صاري هل نبى صاري مثل ما كان والد فيه وضرب فقط موسيقى waan gartay kaa faafiyey muxuu dhigay facebook u dhigay mise waa laga xaday isaga laftiisa
ما صاحبتي بو دري سيدابو فيديو كفافي يقول علي سيدابو مقال كفافي naag buu ku shubay markuu naagti u shubay naagti way sii faafisay ayagana markii dambeeto kuwii kalaa dhigay Facebook ها waxa weeye qofku ku kalsoonaa gabadh buu u diray gabadhiina way sii faafisay dadkaasi misahan falka foosha xun geystay lixni bay ahaayeen shan baa hadda la hayaa inna wuu carray meel jiro lama garanayo kulli gabadhu way ku xadgudbeen nin daa'imada dilka kufsiga muxuu kaamarada kulli mid buu dhiibay oo isku xaquuq bay ahaayeen kulligood dhaawacyada ay soo gaarsiiyeen maxaa ka mid ah walaala laba tooreey baa ku taalo oo midna tahay daqayda iyo muxuu ahay lafta xamdulillah kumay dhicin tooreeyda saasay u geliyeen oo ku soo jiideen midna waa xagga gudaha gudaha xagga muxuu ahay sax badan oo dee aan la soo tirin karin oo midoobaad oo wadnaha qaar kaga yaallo jirkeeda dhan ku faafay oo ka ul dhihi karin oo la tirin karin madaxa tooreeyada madaxoodii baa ku dhacay oo saa ugu dhigteen nabaro badan oo dee hadda yani gudahooda la garanayo way ku yaaliin oo badan maxaa sababayay inay iyadu inanta ay toore la dhacaan iyagoo gacanta ku haya maxaa ku kalifayay way dagaashay way ka qaadi waayeen way ku bateen way la dirday inay isdiibto damceen oo isdiibi weydeen mashan ka xigaabay tiri ilaa ay xad dila deeri baan ka xigaay geesinimo u hadashay korbay u qaadeen dhulkay ku dhufteen dhulka ku dhufteen inay miyir beesho ka dhigeen way la dagaalantay ilaa ay xad way miyir beeshay oo meeyda bay ka qaateen iyadoo meeydo miyir beeshay bay ka qaateen markay miyir beeshay bay ku xadgudbeen dadkaasi yaa gacanta ku haya imika dadka xadgudbay shanta ah mid baa maqane mid baa carabiyo meel kale la garanayn hadda ilaa hadda shantii ninna waa la hayaa familigoodi baa hayo gabadha qoraay adeeradeed iyo niman badan oo tiro badan baa hayo guddi lagu sheegay oo yani ayaga guddi ahaan looga dhigay inay ammaankooda sugaan oo yani nimankaas ay tafaqaan meesha dawladda miyaanay ka jirin miyaanay saldhigyo miyaanay jirin miyaanu maamul dawladeed ka jirin dawladdu maxay gacanta ugu qaban weyday dawladda gacanta kuma aysa qabanin inay ku qabato way damacday haddana ma aqaano way noqon weyday inay gacanta ku qabato arrinkan arrin yani ay dhamaysan karaan qolada waxa gaadhay way ku wadaan oo shareecada diinta islaamka in la waafajiyaa la rabaa ma garan waan gartay hadda shareecada diinta islaamka aan u fadhinaa hadda in la waafajiyo oo yani aan sidaa ku qancno oo nimankaa falkaa sameeyey aanan marna laga harin oo aan shareecada diinta islaamka u aadaan doonaynaa haddii ay suurta gasho oo iyagu yani aysan meel kale nala aadin saasaanu doonaynaa anaga waalidka inantan 10 jeer oo horetay isla handadeen baan ku yidhi inan yar oo iska adag bay ahayd oo ilaa iyo xad aanan jeclayn inay ay ku faracayaanaan waxay damceen inay ka helaan meel daran iyo meel baariya la aadaan way iska celisay markay faraha la soo galaan ba way iska caabi jiday xooggeeda isaga caabi jiday kadibna mid ayaga ka mid ah bay isla dagaaleen way isla xewayshaadeen markii dambe way ka adkaatay markan dambe say ku qaateen markan dambe dee gabar bay dhaweynaysay baan ku yidhi adiga muddo 2 saaca gabadhii dhaweynteedii bay ka timid waa la dafa 2 saac waxaad ka wadaa bacd alcishaay oo kale soo maaha markaasaa la dafay meel bay diyaar ugu marka maxay ku qaateen ma gaari ma gacmaha maxay ku qaateen laba nin baa istaajisay oo yada jeedisay oo ku dhegdhegtay oo kuudka qabatay oo la dagaashay intay la dagaalamaysa gaarigii gaari baa la keenay markii dambe gaariga kusoo meeshii dadkii ku dagaalamaya kusoo daakimay afkaa la qabtay waa lagu tuuray waa lala tegay ayadii gabar kalaba waan gartay ma isleedihiin nimankan guddida ah ee gacanta ku haya waxay waafajinayaan shareecada islaamka maya waanu yidhi noo waafajiyo waanu wax
kale ma doonayno xubno ma doonayno israaqo ma doonayno waxaan doonaynaa inaan shareecada diinta islaamka nimanka noo waafajistaan baan doonaynaa wax kalena ugumaana dhiiban sheeko kale iyo kaleeto inuu meel kasoo baxana ma doonayno taasaan heegan u nahay haddana tiibaan sugaynaa marka miyaa gacanta u geliyay iyaga see loo qabtay nimankan waa qof kasta reerkiisaa keenay waan gartay marka ma waxaa lagu wadaa yani waxaa sheegaya warar baa imika laisla dhex qaadaya odhanaya waxaa lagu qaabka dhaqanka soomaalida ee khaldan ayaa lagu dhammaynayaa oo waxa weeye xaal baa la kala qaadanayaa arrimahaasaa jira maxaa ka jira oo inantiiba waxaa loo guurinaya mid kamid a inamadiiba ayaa la sheegayaa guurguuri waxaas inaan xasino oo aan saamixno ilaa 30 sano hadday gaadho xataa oo maanta la soco oo hooyanimo ii ictiqaadiyayaan oo aniga yastaan oo dhahaan oo intay sheegaysaa ila kashtaan arrinaa yeelayo ama aan yeeli karo ama aan yeelayna dadka ehelkeeda maaha shareecada diinta islaamka waxay naga siisaan diyaar ula nahay inna loogu qaado haddii na lagu qaadi waayana soomaali weyn iyo islaamka dhan waxaan ka codsanayaa inay arrinkaa garab ugu siiyaan oo shareecada diinta islaamka meel kastoo jirto loola tusiyo imika xaaladeedu ma soo wacnaanaysaa ridwaan saxardiin gabadhaas hadda kullay ilaahi xad waa qofkii muxuu dhaawacuna dhaawac weyn weeye sidii horena way dhaantaa oo hadda dhaawacii hore say ahayd ma ahan laakiin xagga maskaxiyan ahaan baa gabadhu qalbada u jabtay qalbad kastana ma soo noqoto marna caadi weeye marna way bedelmaysaa marka ilaahay baan ka rasuulinaa ilaahay muxuu qalbadeeda noo aad ayaad u mahadsan tahay ummadda soomaaliyeed waa idin garab taagan tahay wayna ka wada xun tahay falkan foosha xun laydin geystay loo geystay inantaada ridwaan saxardiid taas waxay ahayd shukri cabdilaahi sheekh cabdiraxmaan oo ah hooyada inanta lagu xadgudbay dhacdadii foosha xumayd ee kufsiga ahayd ee ka dhacday goldogob waxaana ka mid tahay baan filayaa gaalkacayo waad mahadsantii waxaad ila socodsiinaya waraysigan anigoo ah cabdimaalik sheekh muuse cordon asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxay rabeenay kaamarada xugmiir ahaan u haystaan oo ayada ku bahdilaan oo aysan gabadha ay sheegin bay rabeen ma garan ha waxay doonayeen muuqaaladan inay ugu hanjabaan mar baa yidhahdaan kaalay haddii kale waan faafinaynaa saasay ahayd marka ilaahay xaqaas kallidu ka cadeeyey arrinkee ilaahay baa fashilay iyagii baa soo saaray isla markiiba hal nin baa bixiyey qolaba qolo u dhiibtay isla markiiba maxaa tidhi يعني هو نبى صاري هل نبى صاري مثل ما كان وارد فيه وضرب قطعه موسيقية waa gartay kaa faafiyey muxuu dhigay facebook u dhigay mise waa laga xaday isaga laftiisa ma saaxiibadii buu u diray sidee buu videogu ku faafay iigu celi sidee buu muuqaalku ku faafay naag buu u shubay markuu naagti u shubay naagti way sii faafisay ayagaa markii dambeeta kuwii kalaa dhigay facebook ha waxa weeye qofuu ku kalsoonaa gabadh buu u diray gabadhiina way sii faafisay dadkaasi mise ahayn falkaa foosha xun geystay lixnin bay ahaayeen shan baa hadda la hayaa ina wuu cararay meelu jiro lama garanayo kulli gabadha way ku xadgudbeen nin daayay mala dilka kufsiga muxuu kaamarada kulli muddo mid buu dhiibay oo isku xaquuq bay ahaayeen kulligood dhaawacyada ay soo gaarsiiyeen maxaa ka mid a walaala laba tooreey baa ku taalo oo midna tahay daqayda iyo muxuu ahay lafta xamdulilah kumay dhicin tooreyda saasay u geliyeen waa kusoo jiideen midna waa xagga gudaha gudaha xagga muxuu ahay saxaax fara badan oo dee aan la soo tirin karin oo midoobaad oo wadnaha qaar kaga yaallo jirkeeda dhan ku faafay oo ka ula dhihi karin oo la tirin karin madaxa tooreeyada madaxoodii baa ku dhacay oo saa ugu gubteen nabaro badan oo dee haddaan ay ku faracayaanaan waxay damceen inay ka helaan meel garan iyo meel gaariya la aadaan way iska celisay markay faraha lasoo galaanba way iska caabi jiday xooggeeda isaga caabi jiday kadibna mid ayaga ka mid ah bay isla dagaaleen way isla xewaykaadeen markii dambe markan dambe say ku qaateen markan dambe dee gabar bay dhaweynaysay baa ku yidhi adiga muddo 2 saaca
gabadhii daweynteedii ay ka timid waa la qafa laba saa waxaad ka wadaa bacd alcishaay oo kale soo maaha markaasaa la dafay meel bay diyaar ugu ahay marka maxay ku qaateen ma gaari ma gacmaha maxay ku qaateen laba nin baa istaajisay oo iyada jeedisay oo ku dhegdhegtay oo kuudka qabatay oo la dagaashay intay la dagaalamaysa gaarigii gaari baa la keenay markii dambe gaariga kusoo meeshii barkii ku dagaalamaya kusoo daakimay afkaa la qabtay waa lagu tuuray waa lala tegay ayadii gabar kalaba waan gartay ma isleedihiin nimankan guddida ah ee gacanta ku haya waxay waafajinayaan shareecada islaamka maya waanu niri noo waafajiye waanu wax kale ma doonayno afundrixino ma doonayno israaqo ma doonayno waxaanu doonaynaa inaan shareecada diinta islaamka nimankaa noo waafajistaan baan doonaynaa wax kalena ugumaana dhiiban sheeko kale iyo oday kaleeto inuu meel kasoo baxana ma doonayno taasaan heegan u nahay haddana tiibaan ka weynaa marka miyaa gacanta u geliyay iyaga see loo qabtay nimankan waa qofkasta reerkiisaa keenay waan gartay marka ma waxaa lagu wadaa yani waxaa sheegaya warar baa imika laisla dhex qaadaya odhanaya waxaa lagu qaabka dhaqanka soomaalida ee khaldan ayaa lagu dhammaynayaa oo waxa weeye xaal baa la kala qaadanayaa arrimahaasaa jira maxaa ka jira oo inantiiba waxaa loo guurinaya mid kamid a inamadiiba ayaa la sheegayaa arrinkaasa igu dhacay mana soo socdo mana idiin imanayo meeshaasaan sakaraad ku ahay hooyo dhibaatadaas ay gaadhay jirgulyada sarfaadkaas hooyana ma sheeganayo aabbana ma sheeganayo sixin baa la ii galay kaasaas baa igu dhacday meeshiida iyadoo sakaraada nin ka qaaday nin baa qaaday annagoo way naga cararayn oo mana si sheegin markii gaalka ayaa la keenay kabacdi bay iyadu nala soo hadasho telefoon reeradagii nagala soo hadasho falkani goormuu dhacay misaa kasoo wareegtay 12 bishii 12 oo sanadka hadda ku xirmay 7deedii buu dhaca 7deedii waan gartay maantana waa bishii koobaad ee 16keedii waan gartay sidee buu warkan loo helay maxaa hore loogu sheegi waayey maxaad u gaarsiin weydeen muxuu ahaye dadkii falkan samaystay cidda wax ka qabanaysa ee maamulka haysata maya gabadhu way caradhay hadday naga caradhay waxay qabtay warkamaanahay cidna nooma soo sheegin kaamarad baa laga duubay ayadana way iska caradhay oo ilmo yaroo qalbifo ku dhacay bay ahayd inuu maskixiyan u jirogay oo qalbadii jabtay gaalkacyay soo gashay markaa kabacdi annagana soo wacdo waxay tiri hooyo dhibaatadaas ay gaadhay iyo ilmana soo socdo way kaasaa gabdhahan u dirsooday markiiaan gaari soo raacay dartaana ugu yimid markaasay dhakhtar la kulantay markiibaan raggii yani lagu dhaqaaqay kaamaradii ay soo saareen ayagaa welina gacanta ususaashelay kaamaradii bay soo faafiyeen kaamaradaasa lagu baraarugay kamarada fideoyadan muuqaaladan laga soo geliyay baraha bulshada marka ma iyagaa soo geliyey nimanka falka sameeyey baa soo geliyey ayagaa soo geliyey ilaahay baa filay oo markaa iyagu miya ku faan bay ka ahayd markay soo gelinayeen maya waxay ahayd gabadhan gabar yar bay ahayd oo ilaa iyo xad iska adag oo ilaa iyo xad lasoo weeraray 10 jeer horeento iyagu laftirkooda soo weerareen oo ay ka soo caradhay oo in badan ay daba joogeen haddana بسم الله الرحمن الرحيم دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحا خدك تليفونك كوتشرتا شكري عبد الله الشيخ عبد الرحمن هو يضا إن أنت لقو حد قدبي لقونا حد قدبي ديغانك قول دوغب إن أنت مقعد وحا ليدا هذا رضوان سحرديد وحانا إنوغو ورميسا هو يديد وقو هرين وحان ويدينينا بل انت أنا ويدين فالكان يسيدو دعاي ويدينينا بل وحا عيمك يكون دنبيسو يحالة عافيمات شكري بل نوغو ورن حالة عافيمات رضوان walaal xaalada caafimaad ee Ridwaan waxa weeye aad waa qof dhaawac ah dooreeyo badan ku yaalin xiskeeda iyo maskaxdeeda garaafooyin badan soo gaadhay jirkeeda meel kamid ah oo siyo malahan dooreeyada hadda ugu daran oo ilaa iyo xad dhaawac oo aan iskoonaynin gaaray muddo adiga 28 cisho ayaan dhakhtar ku jirnaa isbitaal dhagaxa deegaanka ayo caafimaadkeedana beenahay ilaa iyo xad
ولي ما دري من عاصمات إسرائيل وهوا مير قطع مروي مير قرشو ميسا مربنا على كسوان تايمه waxaad ka warantaa falkan sidoo ku dhacay markii ugu horeysay gabadha yarayada oo saacay guriga ka soo baxday oo gabar kaleeto dhaweynayso oo soo socoto markay wadi dhaweysay ka soo noqotay dhaxda laga wiil oo yar intuu istaagtay mariyaha kaga dhageen intay ka fujinaysay gaarigii baa gabadhii lagu ribtay gaarigii musti baa laga daaray waa lala cararay laadiya la geeyay arrinka foosh xundaa lagu sameeyay gabadhii kooma iska gashay ilaahay xad muddadan baan raadinayna gurigayna raadinay meel ka baxday kadibna waxaa loo sheegay iyadoo muxuu ahaayey sakaraad gaalkaayo ku ah ayada nala hadashay oo tiri aniga gurigooda la garanayo way ku yaaliin oo badan maxaa sababayay inay iyadu inanta ay toore la dhacaan iyagoo gacanta ku haya maxaa ku kalifayay way dagaashay way ka qaadi waayeen way ku bateen way la dirday inay isdiibto damceen oo isdiibu weeyeen mashan ka xigaabay tiri ilaa ay xad dila deeri baan ka xigaay geesini bay u hadashay korbay u qaadeen dhulka ku bisteen inay miyir beesho ka xigaay way la dagaashay ilaa ay xad way miyir beeshay oo meeyda bay ka qaateen iyadoo meeydo miyir beeshay bay ka qaateen markay miyir beeshay bay ku xadgudbeen dadkaasi yaa gacanta ku haya imika dadka xadgudbay shanta ah mid baa maqane mid baa xaraamiyo meel kale garanayna hadda ilaa hadda shantii ninna waa la hayaa family waa hayo gabadha qoorsaay adeeradeed iyo niman badan oo tiro badan baa hayo guddi lagu sheegay oo yani ayaga guddi ahaan looga dhigay inay ammaankooda sugaan oo yani nimankaas ay safaqaan meesha dawladda miyaanay ka jirin miyaanay saldhigyo miyaanay jirin miyaanu maamul dawladeed ka jirin dawladdu maxay gacanta ugu qaban weyday dawladda gacanta kuma aysan qabanin inay ku qabato way damacday haddana ma aqaano way noqon weyday inay gacanta ku qabato arrinkan arrin yani ay dhamaysan karaan qolada xagaaday way ku wadaan oo shareecada diinta islaamka in la waafajiyaa la rabaa ma garata waa gartay hadda shareecada diinta islaamka aan u fadhinaa hadda in la waafajiyo oo yani sidaa ku qancno oo nimankaa falkaa sameeyey aanan marna laga harin oo aan shareecada diinta islaamka u aadnaan doonaynaa haddii ay suurta gasho oo iyagu yani aysan meel kale nala aadin saasaanu doonaynaa anaga waalidka inantan 10 jeer horetay isla handadeen baan ku yiri inan yar oo iska adag bay ahayd oo ilaa iyo xad aanan jeclayn inay